السلام عليكم كسو دو channelkayga Modern Somali Food maanta waxaan idin la wadaagayaa fiidow aad u qurux badan oo aad u xiiso badan waa casari caruurta loogu talagalay waa cake shuura laga sameeyay aadna u caafimaad badan maasha Allah tabaaraka raxmaan sida quruxda badan aad arkaysaan ayuu keegeenu soo baxay intaan fiidowgeena guda galin haddii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe ii saar haddii aad ka mid tahay dadka ku xidhan channelkayga waxaan ka codsanayaa inaad fiidowga like ii saartid comment aad ka bixisid asxaabtaadana la sii share garaysid waxa uu ka kooban yahay cake aynu maanta sameynayna sida tan ee soo socota laba xabo oo organic bread ah anigu organic bread kama breadka dabiiciga ayaan badanaa jecelahay inaan u isticmaalo waxyaabaha caruurta loo karinayo sidoo kale hal koob oo daqiiq ah waanad ka badsan kartaa waanad ka yareysan kartaa waxay ku xiran tahay inta qof aad u sameynayso waxaan ku darayaa koob barkii oo shuuro ah ama shuurada cornmeal inta radqan sidoo kale 4 milqaacadood oo butter aan soo dhalaaliyay oo soo qaboojiyay waxa aan ku darayaa kale 1 milqaacad oo baking powder ah iyo in yar oo milix ah waxaan isticmaali doonaa cupcake-gan aad arkaysaan tray-giisa waxyaabahan kale decoration-ka idin muuqdana dusha hadhow toole ayaan ka saarayaa marka uu bislaado waa chocolate-ka marka aan qasayo ayaan ku yara dhex dari doonaa inna dusha ayaan hadhow ka saari doonaa insha Allah haddii aad adigu jeceshahay decoration-na ka duwan ama waxyaabo ka duwan inaad dusha hadhow kaga sharaxatid waa qof walba iyo dooqiisa imika sida aad arkaysaan waxaan guda galay inaan keegayga isku wada qaso oo isku wada daro haddii uu keegu marka aad qasayso ka adkaado waxaad ku dari kartaa in yar oo caano ah haddii uu ka adkaadana ama in yar oo daqiiqa ayaad ku adkeyn kartaa ama cornmeal-ka ama shuurada ayaad in yar oo kale ku darsanaysaa hadduu ku hagaagi waayo marka ugu horeysa mar labaad iyo mar saddexaad baad isku dayaysaa ilaa inta uu kaaga hagaagayo dad badan ayaa iga soo codsaday waxyaabaha caruurta la siiyo ama cuntooyinka caruurta marka waxaan isku dayi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo markaan dhowr fiidow soo galiyaba inaan fiidow caruurta ku saabsan aan soo galiyo ama ha ahaato casari caruurta la siiyo ama quraacdooda ama qadadooda ama cashadooda sidoo kale insha Allah taxane waxaan bilaabi doonaa caruurta yaryar ee dhalatay sanadka ka yar waxyaabaha la siiyo cuntooyinkooda ama haddii ay calool istaag qabaan oo kale waxyaabaha la siin karo ee dabiiciga ee naturalka ah markasta wax ka fiican waxyaabaha dabiiciga inaad isticmaasho intaad ilmaha dawaysiin lahayd marka haddii Ilaahay yiraahdo waxyaabahaas oo kale waan idinla yani share garayn doonaa ama aan idinla wadaagi doonaa qoraalka dusha ayaan idinka soo qoray just in case haddii jiraan dad aan Soomaaliga fahmaynin sida Englishka u akhristaan isagii Soomaaliya laftigiisana waan idin soo qoray haddii uu jiro qof aan markan anigu hadlayo kale haddii aan degdegayo amaani fahmaynin ama raba inuu codka iska xiro markuu fiidowga daawanayo si ugu fududaato inuu arko waxyaabaha aan isku dardaray ingredient waxay ka kooban yihiin cake-gan saad arkaysaan imika uu yara adkaaday maasha Allah uu fiican yahay yaro sankara ayaan dusha kaga darayaa waad ka badsan kartaa 2 milqaacadood ka badan laakiin ma jeclina sonkor badan ku daro maadaama caruur yar cunayaan intii aan xagga hore idinku sharxay ayuun buu ka kooban yahay wax kale oo dheeraad ah kuma darayo waxa laga yaabaa marka ugu horeysa yani sameysid inaad la yara yaabto dhadhanku una cake caadi kula dhadhamin maadaama shuur ay ku jirto laakiin aad ayuu u fiican yahay xagga caafimaadka iyo xagga kaleba yani masha Allah dhadhankiisu markaad la qabsatidna yani wax kale ma barabtid inaad tijaabisid ilmaha haddii aad casariyo u siiso koob caanaana ku siisid maasha Allah tabaaraka raxmaan wax kale oo ka maqan ma jirto intuu ilmuhu macmacaan kale ama nacnac iyo waxa cuni lahaa ama keega dibadda ka soo iibisay oo nad garanaynin wax lagu soo daray aad siin lahayd waxa mar walba fiican waxyaabaha aqalkaaga ku samaysato aad qacantaada ku samaysato aad ogtahay waxa aad ku kooban yahay in aad caruurta siiso ayaa aad u fiican oo aad u qurux badan
imika maasha allah waa ii diyaar waxaan isticmaalayaa papers ama waraaqa yaryar ayaan ku ridayaa cupcake traygeena kaliya because waxaan rabaa hadhowtole markuu soo baxo inuu wixii wax oo kalara badan loo colorful uu noqdo oo aragga uu fiican oo ilmihii soo jiidanaya maadaama rabo inaan waxyaabo sharaxaad dusha kaga daro marka iminka 6 baan u qaybiyay intaasi marka ii bislaatana insha Allah in kale ayaan sameeynaya maadaama in kale oo cajiin oo ii hadhay ay jirto iminka waxaan rabaa in yar oo sisina inaan ku daro caruurtu badanaa sisinta ma jecla laakiin marka aad keegiyo waxaa ku darto ma dareemayaan waxan inuu sisin yahay waa dhadhankii kala ka badan lagama yaabo inay yani ka shakiyaan waxay tahay waxa suuragal ah mararka qaarkood inay dusha sidaa uga xoqaan laakiin haddii uu sisinta qayb kamida ay gunta gasho yani iyaga waa wuxuu fiican mar walba caafimaadku u fiican cupcake qaar kamidana waxa aan ku darayaa waa chocolate waxa weeyaan bas yani flavor kale ama macmacaan inuu yani u taro baan rabaa marka laba kamida sisin ayaan ku daray laba kamidana waxaan ku daray waa chocolate labada kalena saafi ayaan ku daayay marka qof walba wuxuu jecel yahay ama flavorkiisa ayuu hadhowtole ka dhex saaranayaa xataa ilmihii xiise ayuu u haynaysaa wuxuu is oranayaa allah ka kalena ku xigana bal tijaabi maxaa ku jira wax laga yaabo mararka qaarkood intuu xabad ka cun lahayn ama laba ka dhigto oo si isla mid walba u tijaabi faa'iidada kale ay leedahay in waraaqahan yaryar la isticmaalana waxa weeyaan waxaan ka isku goobaynin trayga isticmaalaysay bas biyo yar oo baad ugu maydhaysaa maasha Allah tabaaraka raxmaan wax kale yani kaagama dhigay guntii kamana madoobaanayo imika decoration yaryar ama sharaxaad yaryar oo loogu talagalay in lagu sharaxo cupcake ama keega ayaan dusha ka saarayaa waxa weeyaan inuu yani indhaha soo jiito oo ilmihii excited ku noqdo uu ku farxo yiraahdo waxani waa maxay weeyaan maasha Allah tabaaraka raxmaan wad mahadsantihiin fiidiyooga daawanayseen waxaan rajeynayaa inaad ii like garaysaan comment fiican aad iga tagtaan asxaabtana la share garaysaan waxyaabaha kala jeceshiin inaan soo galiyana aad la wadaagtaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dhara